السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikaaji. maanta waxaan qaadanaa 10 ciwaankiisu yahay making apologize waa maxay? waa raaligelin. makingna waa maxay? waa samayn. marka waxaan baranaynaa sida raaligelinta loo sameeyo iyadoo la isticmaalayo luqadda Englishka. halka ka daawanaysa waa Hikaaji. qofka ku soo jeedinayna waa Muxidiin Cabdi. bal 10ka aanu gudo galno. Excuse me iga raali noqo. qof baa wadada ka galay mataqaanad salaanka wada marasay, qof baa wadada isku gudbay, marabta qofka inaad taabatay ama ku dhacdid ama meesha ku ciriirisid waxa dhihi ka dhaad salaanka excuse me iga raali noqo. ama qof baa hadal yiri aadan mataqaanad jeclaysan ama aadan rabin hadal noocaas kale inaad maqashid ama tusaalahan kale markaas wax ku leedahay excuse me. qof baa hadal ka maqashay laakiin hadalkaas oo kale kama rajeenin ama kama filin tusaalahan kale markaas kale waxa ku dhahaysaa qofka hadalkii ugu soceliyo excuse me iga raali noqo. yani maxaa tiri hadir oo kale way ku soceli kalabaad I am sorry. tan waa la iska yaqaan dadka dhan way yaqaan I am sorry waan ka xumahay. midda saddexaad I am so sorry aad baan uga xumahay. sooda waxay siyaadinaysaa inaad aad uga xuntahay si xad dhaaf ah wixii aad samaysay ama aad geysatay inaad aad uga xuntahay oo aad ka shalayday ayay tusinaysaa. ka afraad waxa la yiraahdaa I am very sorry aad ayaan uga xumahay. sorry oo ferida la socoto ama soo la socoto waxay la mid tahay aad inaad uga xuntahay wixii. 5 I am terribly sorry waxaan si aad ayaan uga xumahay wixii aan ku sameeyay. I'm terribly sorry aad baan uga xumahay wixii mataqaan iga dhacay ama aan sameeyay tusaalahan kale. 6 sorry waan ka xumahay I didn't mean to do that ma ka wadin saa kama wadin macnaa inaan waxa sameeyay tusaalahan kale kama wadin. I didn't mean ma ka wadin to do that taas inaan sameeyo. 7 sorry waan ka xumahay about that taas waan ka xumahay. sorry about that waan ka xumahay taas. 8 can you forgive me ma cafin kartaa? yani qofkii khalad baa ka gashay raaligelintii meeshii ka dhihi lahayd sorry baa waxa leedahay mataqaan cafis weydiisanaysaa. can you forgive me ma cafin kartaa? waa qayb ka mid waa nooc ka mid ah noocyada dadka loo raaligeliyo. 9 ama 9 I apologize for my mistake waxaan ka raaligelinayaa ama raaligelin ka bixinayaa khaladkayga. I apologize waxaan raaligelin ka bixinayaa for my mistake khaladkaygii. 10 ama 10 please forgive me fadlan icafi. qofkii waa baraysa. 10 I owe you an apology waa ku raaligelinayaa wey raaligelin baa igu leedahay wey. I owe you an apology waan ku raaligelinayaa. 11 you can blame me for this tan waad igu eedayn kadhaa yani eedan anaa galay waana mudanahay in laygu eedayo wey. you can blame me for this tan waa igu eedayn kadhaa. how should I apologize you see ku raaligeliyaa. how should I apologize you see ku raaligeliyaa. yani raaligelin noocee rabtaa? ma inaan nin cimaamad ku saaraa rabtaa ama gabar yahay mise inaan waxa way xaal ku siiyaa rabtaa mise wixii aan galay inaan waxa way ku gudaa rabtaa see rabtaa inaan ku raarigeliyo qofka weydiinaysa. 13 I beg your pardon waxaan baryayaa cafidaada inaa cafidid baan kaa baryayaa wey. I beg your pardon cafintaada ayaan baryayaa. 14 sorry it is my fault waan ka xumahay waa khaladkayga. fault waa khaladkayga wey marka sorry waa ka xumahay it's my fault qof baa lugta ku dhufatay tusaalahan kale markaas waxa la sorry it's my fault yani waa khalad aan galay wey yani waa garawsanahay inaan khaldamay qofkii baa ogeysiinaysa macna. 15 I apologize for keeping you waiting qof baa la balantay markaasaa ka soo daahday tanoo kale ku dhahaysa qaabkanoo kale u raaligelinaysaa qofkaas. I apologize waxaan ka raaligelinayaa ama raaligelin ka bixinayaa for keeping you waiting. I apologize waxaan raaligelin ka bixinayaa for keeping you waiting inaad isugaysay macnaa sugitaankaaga baan raaligelin ka bixinayaa inaad soo daahay oo dee
qof dhan aan meesha ku ilaaway ayaan raaligelin ka bixinin. 16 sorry waan ka xumahay I'm late. Sorry waan ka xumahay I'm late. waan soo dahay ama waan dahsanahay. I'm late waa dahsanahay wey, yacni waan dahay. Sorry I'm late. Sorry waan ka xumahay I'm late waan dahsanahay. casharka intaasaan kusoo gabagabaynana. haddii eeba idmo casharka ku xiga waxaynu ka dhigi doonaa qaabkii aa uga jawaabi lahayd qof hadduu raaligelin ku siiyo. raaligelin inuu qof koo bixiyo waa wax wanaagsan, sidoo kale inaad ka jawaabtid oo jawaab celin wanaagsanna ka bixisid adigana waa wax lagaa sugayay. haddaa qof wanaagsan tahay, qofka hadduu khalad kasta kaa galo uu raaligeliyo waa qof isgarawsadaye, adigana waxa weeye mataqaanaa la garade waxa uu dareemayo. intaas ayaan cashar kusoo gabagabaynayaa. casharkan cashar la mida inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo nooli kulante.